Doorashooyinka Soomaaliya dib ugama dhicin sababo la xiriira inaan doonayo inaan xukunka ku dheganaado sida beenta ah ay dadka qaarkood ku doodaan. Ha yeeshee ismariwaaga siyaasadeed oo ay ka dhalatay in laba garab ay kala noqdaan dowladda federaalk Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa dib u dhigay horusocodka doorashooyinka. Khilaafkii ismariwaaga waxaa gundhig u ah in ay dowladdu doonayso doorasho toos ah oo qof iyo cod ah iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo aan dooneynin doorasho aan toos ahayn oo awood siisa siyaasiyiinta una diida shacabka caadiga ah codkooda. Waxaa la gaaray xilligii ay beesha caalamka isweydiin lahayd farsamo kasta maxaa keenay in shacabka Soomaaliyeed ay mar la haystayaal ugu noqdaan odayaal qabaa'il oo kooban iyo madax maamul goboleed. Wuxuu sheegay in bishii Juun 2018 ay dowladdiisu iyo maamul goboleedyada isku raaceen doorasho qof iyo cod ah, laakiin taasi ay dhici weysay kadib markii dhammaan 5 dowlad goboleed ay ka baxeen heshiiska ayaga oo ka soo horjeeda in awood la siiyo shacabka siduu hadalka u dhigay. Waxa uu qoraalka ku sheegay in isaga oo aad uga niyad jabsan taas dib loo galay wadaxaajood isla markaana la isku raacay hanaanka doorasho aan tooska ahayn ee 17 Sebteembar sanadkii tagay 2020 taasoo uu aqbalay. Hanaankan wuxuu burburay wax yar uun kadib markii hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ay bishii November sanadkii tagay 2020 ay ka soo laabteen safar ay ku kala tageen Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo ah laba dal oo Soomaaliya aysan xiriir xooggan la lahayn, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Waxa uu sheegay in ismarinwaa dheer kadib baarlamaanka uu meel mariyay sharci ah in dalka doorasho qof iyo cod ah laga qabto 2 sano gudahooda, taasi oo isaguna saxiixay. Ha yeeshee buu yiri taasi waxaa ka dhalatay caro xooggan oo ay sameeyeen mucaaradka iyo xubno ka mid ah beesha caalamka, taas oo mar kale dowladdiisu ku qasabtay inay tanaasul sameyso siduu hadalka u dhigay. Waxa uu ku eedeeyay mucaaradka in ay huriyeen rabshadihii ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay go'aanka baarlamaanka. Waxa uu rabshadahaasi ku qeexay fursad ay ka faa'iideysteen kuwii huriyay. Waxa uu ugu dambeyn sheegay in mar kale bishan la iskugu imaan doono magaalada Muqdisho la iskuna raaci doono heshiis lagu fuliyo hanaan doorasho oo aan toos ahayn, iyadoo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayna xaqiijin doonaan in uu noqdo hanaan loo dhan yahay oo doorasho uu ku hogaamiyo fursadda ugu horeysa uguna macquulsan.